السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوا صاحبيال meel boodnida daafeed ka joogtaan si walba is arag maqalkaygu idin soo gaaray waxaan Allah kulanti wacan oo wanaagsan kulamadii hadda soo dhamaaday aan hal u dul istaagi doonaa Real Madrid oo si dheereystay hogaanka La Liga Liverpool oo dad guulaha dib ugu soo laabatay eedana Chelsea oo la soo afjaray guulihii bishii ayna soo dhaafna beaten ayay ahayd Liverpool Chelsea afwan ayadana caawa barbara ay waxay soo gelisay Brentford Manchester United oo 10 u dhigtay ninkii ahaa madax maskaxiiriski Antonio Conte Tottenham 2-0 lagu garaacay muuqaalkan like saar saaxiibayaan sii share gareey saaxiibada kale nagu cusub subscribe-kiin nagu dhiirigeliya waxaan ku hormari doonaa kulanka Liverpool iyo West Ham kulankaas oo ku qabsoomay Old Trafford Liverpool daqiiqadii 21aad gool oo u dhaliyay ninkii ahaa Darwin Núñez kaga filnaa 3 dhibcood inay qaataan Jurgen Klopp xaalad degnaan ayuu dareemayaa Liverpool hadda kaalinta kala sareynta horyaalka Premier League waxay ku joogtaa kaalinta 7aad saddexdoodii kulan ugu dambeeyay waa ay badiyeen dhibaato ma jirto xaalku waa shalab waxaan ku iri waxay taageereen Liverpool waa saan u soo kacnay Liverpool anigu waa ogaa awal markuu Pep Guardiola oo idin dhahay Liverpool waa mar walba kooxda ila tartamaysa been ma ahan Liverpool is back hadda waa ay soo laabatay waxaa lagu leeyahay waxaas waxa kaaga daran Philip Fantage rekoorka uu ku sameeyay Anfield difaac hadda kadib dhalan doonana ma ku sameyn karo mid Premier League joogan inuu sameeyo iskaba dhaafba kulankii 7aad uu ku dheelay Anfield horyaalka Premier League-na loogama badanin Philip Fantage ninka dhan aan aragtay inta sila eg waligiis Anfield loogama badanin inta fanaanada Liverpool oo wata marka difaac saas Premier League in laga soo helo uma maleynaa congratulations aydan leeyahay Liverpool guushan oo u baahneedeen kaalinta 7aad ku imaadeen horyaalka Premier League meel walba ay joogtiin waxaan leeyahay saas u soo kacsanaada hadda halkaas ugu soo gudubno kulanka kale oo la dheelacaa wuxuu ahaa Chelsea Brentford abaw kaas alib Keba waaw buufan oo inta taagan ileemba caawa waxaan ku dhahay Chelsea asaa dhibicdaas siya dhigi karaa Keba wuxuu ka badbaadiyay gool annada level Chelsea waa laga banooni fiicnaa Brentford kubad fiicneed oo gurigeeda joogtay laakiin Chelsea wax guul dara lama soo kulmin hal dhibic ay la soo laabatay next waxay leelaysaa Manchester United haduu Ilaahay gaarsiiyay sabtid axadda waa kulanka ugu weyn isbuucan horyaalka Premier League aan daawan doono Real Chelsea si dareemay xagee maroosin idin kana tofara joogteen caawa top 3 soo gal lahaydeen Tottenham waa la garaacay laakiin adika Brentford dhibaha ka soo qaadan waay Real Chelsea barbara gareen Liverpool waa ay badiyeen kulanka hore oo Premier League marka waxa kulanka Manchester United iyo Tottenham caawa daqiiqadii 20aad waxa looga dhigay ciyaarto dhan ciyaarta 90kii in la joogo caawa Manchester United caawa si u dheelaysay si qurux badan ay u dheelayeen banooniga xirkooda weerarkooda ataagooda kood 19 shoot lagu tuuro 20 daqiiqo markay mareysay caawa goolhayaha oo Tottenham ma arkino kubado badan ka save gareey ma ahan caawa Tottenham 4 ilaa 5 Manchester United way gaarsiin kartay ninkii ahaa waxa goolasho u bilaabo Manchester United Fred gool sareen ee dhaliyay goolka labaadna Bruno Fernandes halka goolka saddexaadna ay Far diiday marka Manchester United next waxay leenayaan nimanka Tottenham waxay leeyahay Chelsea afan saaxiibayaal Tottenham hadii la dheeleen Cristiano Ronaldo wax fiican caawa ma sameeynin markii ciyaarta 7aad 8aad 9aad too macalinku u fiirinay oo wax bedel loo soo gelin waa ciyaartii oo socoto ka tago Ronaldo waxaas wax laga filay ma adoo Old Trafford joogto ciyaarta socoto in ay baxid saan loo cambaareenooya ani kulan horyaal ay mab igu soo bilaabays miyaa u dhahay Europe League le maaleen ab iga siinay haddaaba iska baxa amal baawarkiisa oo ka xeestay ciyaarta socoto Ronaldo markaas wax laga fiican leeyahay Manchester United waxaan ku iri kulan Newcastle barbara la soo gashay Manchester City soo garaacday caawana waxay gurigeeda ku garaacday Tottenham waxa ugu wacdaa Manchester United mideeda kale Antonio Conte waaba caaq caadi ah asagoo 5 difaac dheelay haddana 4 dhax ka dhigay maxay inta la kala maraa daqiiqadii 20aad waxa looga dhigay daqiiqadii 10aad marka Real Manchester United hadda halkan iga jeedin saa ku dhaama fahamteen aan bari aydan leeyahay saaxiibayaal waxa u gudbeynaa cadcadka Los Blancos Real Madrid hogaankii way sii dheereysatay Karim Benzema guuleystaha Ballon d'Or uu yahay man of the match ciyaartan asaga goolkiisa ku turtay Karim Benzema gool haba dhalay ma bala yaabin ana waxaan la yaabanahay yarka Camavinga ee dhahay yarkan ee dhahayaan Valverde qad dhaxmiya weerar miya difaac miya ilaa hadda waa kala saari lahayd Real Madrid mustaqbal cad ee gacanta ku haysataan leenahay Marcos Asensio bedel ku soo gal gool u dhaliyay asagana marka Los Blancos waxaan leeyahay congratulations idinkan habeen dambe Barcelona hadii dheelays ayadan waxa la timaado waa arki doonaa
Real Madrid jiil dahabi ay gacanta ku haysataa lamana xaqiri karo marka Real Liverpool adikana hambali aan leeyahay Manchester hambali aan leeyahay aniga fanis Man City ina waa ogtiin dhamaantiina jabkiina soo gaaray isbuucii hadda laga soo gudbay oo naga soo gaaray Anfield waxa rajaynaynaa inaan ka soo kabano Arsenal aan la dheeli lahayn kulankeena postponed aan nooga dhigay laakiin saxad sabtiga haduu Ilaahay gaarsiiyo Brighton half Albion aan la dheeli doonaa sport hormar la inoo rajaynaa saaxiibayaal gabadhan walaashiin way janalka hero like share waxa dhan isku daran fahanteen bye bye